هذا سؤال دينك ويدينا سادس كنتين حاجة دين aniga كل قرآن كيان وحكا قانا وحكا بربرتي علينا sida quruxda badan ee aad barnaamijka garow ku guuleyso uga faa'iideysatay su'aal badan oo soo garan waayeen dadka reer magaalka ay magaalooyinka joogay gabdhaha miyiga ee baadiyaha jooga iyo gabdhaha magaalada keebaa fiican maxaad ka aaminsantahay gabdhaha magaalada jooga ma gabdhaha de kuwa magaalada jooga kuwa miyiga jooga midna cayiga ma mudno kuwa walba way fiican yihiin ka waran geela geelu fiican yahay kaasoo barwaaqaysan iska fiican yahay marka hadda xilliis nooceed ku jirtaan eega xilli waxaan ku jiraa diraacaho roobda ku dhow marka waa kaasoo xilli diraacaho kulul baan ku jiraa oo xilligii roobda ku dhow ilaahay roob khayr qabayna siiyo way geelan xageed ka soo aad ka soo rarteen ama aad ka soo arooriseen geela waxaan ka soo aroorinay xagga hudda xagee ka tirsan tahay huddo aduu waxay ka tirsan tahay gobolka qorraxay halkii maan ku fulinaynaa eegana uu soo arooray ceelku ka cabay eegana halkii ku fulayaa marka geelan wadaan hadda waa meeqa tiro geelan adigu kulli 150 uu dhan yahay hadaan dambi yaraysto kulli waxba dheer laakiin 150 meel majority aan ku deenay marka ma idinkaale mise waad la joogteen ma annaga leh way hadaan geel iyo bixi ku dhameeqad ka bixin lahayd geel kulli gabadh qurux badan baa tahay 10 halaad baan ka bixin lahayd ma 10 halaad kaliya warde kordhiyo 50 iyo wax konton de kuma gadanayo walaalo waan isguursanayna oo 10 baan ka bixin lahaa waa sida way geelo muxuu kala baxaa marka uu dhasho ilaa marka uu duqoobo lab iyo dhadigiisa maxay u kala baxaan geelu de uu noocyo badan yahay marka waa kaasoo noocyo fara badan buu leeyahay midabkiisa kala bedelan jaadkiisa kala bedelan uu noocyo badan yahay marka midabkiisa iyo jaadkiisa mise nooc mise qaybood bay u kala baxaan midabkiisu fara badan yahay cadiin buu noqdaa guduud buu noqdaa may buu yeeshaa madow wax la dhaho yeeshaa jaadkiisa kaleentana hoor iyo geelab iyo aydin baa la kala dhahaa waka maya xagga midabka guduud iyo cadiin iyo madow iyo may buu kala baxaa marka taran ahaan iyo caan ahaan iyo anfac ahaanba maxay ku kala duwan yihiin kala fiican kalaradaas xagga kalarka kulli uu kala adag yahay marka waa kaasoo cadiinka ugu adag oo uu kalar fiican xagga noocyaha kale ee geelabka iyo sida hoorka oo kale na hoorka la jecel yahay waka magaalada iyo miyiga keebaa fiican miyiga kulli noolal ahaan dadka bini'aadanka magaalada u dhaanta marka asaalatan qofka noloshiisa magaalada u dhaanta marka waka miyigana de ayaduna muxum oo xilli uu abaar iyo kuleyl la gala mooyaane de dadka reer miyigu way iskaga fiican yihiin xilliyada barwaaqada oo kale inta ay xoolo dhaqatada xoolaha haysta laakiin hadda noolal ahaan kulli nafsada bini'aadanka magaalada u dhaanta waka marka waa waxbarasho iyo caafimaad iyo nolosha aasaasiga ee bulshada xageed ka heshaan nolosha aasaasiga ee bulshada iyo sida caafimaadka oo kale magaaladan ka helaa marka waa kaasoo de magaalada baa laga helaa waxbarashada magaalada baa loo doontaa miyi ma taalo markay ugu roontahay waxbarasho diini oo sida quraanka oo kale dugsiga oo kale laga helaa miyiga waka waxbarashada xagga diinta marka ayna quraanka maxay ahayday baadiyaha ama dhulka miyiga ah maxaad ku barataan ma buugaagti baad soo gaadhay mise wali looxdii iyo qalinkii baad wax ku qorataan iyo khadi la riiqayay maya miyiga waxa wax lagu bartaa looxii iyo qalinkii in baa lagu bartaa marka waa kaasoo looxii in baa wax lagu dhigtaa iyo qalinkii marka laakiin wax buug iyo wax xaashiyo wax lagu qoro ma jiraan looxdii in baa sideeda lagu dhigtaa ardada carruurta looxdii baa haystaa iyo qalinkii waxa weeyaan iyo tawaadi marka waa ka geela markaan ka soo tagno noocyada u kala baxo nimanka geela raacaa ma la jooga maxay u kala qaybsadaan nimanka geela la jooga waxay u kala qaybsadaan gacan yare iyo madaxweyne marka madaxweynuhu ma geelu maamulaa mise gacan yara maya gacan yaruhu geelu la jooga madaxweynuhuna korku geela ka maamulaa waka oo geelu madaxweyne u yahay geelu madaxweyne u yahay marka madaxweynaha geela yaa doorta geel jirahan baa doorta qaabkeed u doorataan de kulli talada geela iyo maamulkeeda baa loo doortaa cidda geela la baa qofka weyn ee kolba geela hayay madaxweyne geela ooga dhigata ama de isaga iska noqday cid kaliba oo khaas ma sii doorato marka dantiisa baa doorato de geela madaxweyne u yahay ceelku ka shubaa uu u sahmiyaa maxaan ku dhahay xiradu u odaa ka yarra waa wax yar oo gacan yar oo geela uu dhowraa oo dheelka uu wadaa iyo gudunta marka waka gabdhaha miyiga ee baadiyaha jooga iyo gabdhaha magaalada keebaa fiican maxaad ka aaminsantahay gabdhaha magaalada jooga maya gabdhaha de kuwa magaalada jooga kuwa miyiga jooga midna cayiga ma mudno kuwa walba way fiican yihiin marka oo waxa weeyaan ta miyiga joogtana way fiican tahay ta magaalada joogtana way fiican tahay qofkii fiicnaa macnaha wanaagsan ilaahay wanaajiyo baanada wanaagsan laakiin miyiga magaalada gabdhaha jooga wada fiican yihiin wada wanaagsan yihiin waka hadaan su'aal diinak weydiino saad isku tihiin xagga diinta aniga kulli quraanka iyo wax ka qaana wax ka barbartay
laakiin haddee culimanimo kale iyo hawlo kale into fara badan maana sii gelin ama cilmi oo kaleente maana ku badanin waayo haddaan su-aalka weydiina diiniya bal nasiibkaaga si aan ugu tijaabino oo barnaamij garoo ku guulaysay bisha barakaysan rabadaan ee maamulka magaalada qabridahar aan ugu talagalnay dagaalkii lagu kala saaray xaqa iyo baadilka keebuu ahaa xaqa iyo baadilka dagaalkii lagu kala saaray ilaa xillima dagaalkii asxaabtii nebiga ay ka qayb galeen ee xaqa iyo baadilka lagu kala saaray ee muslimiinta lagu soo qaaday keebuu ahaa de kolley muslimiintu dagaallo fara badan bay galeen waxaa ka mid ahaa sida dagaalkii beder oo kale muslimiintu guulaysteen uxud oo kaleentaa jiray waxaa jiray dagaalkii axsaad ee macnaha godka la qoday ee godka lagu jiray baa yaa jiray dagaallo fara badan bay muslimiintu soo mareen oo in fara badan bay maaragtay asxaabtu ay dagaalameen oo diinta u dagaalameen laakiin dagaaladaasaa jiray sida dagaalka beder oo kaleentay si fiican bay u guulaysteen marka dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud keebuu ahaa dagaalkii xaqa iyo baadilka lagu kala saaray kolley arrintaa xoogaa way iga yar madowdahay oo hadda ma wada ana soo dhufanine laakiin anigu kolley beder umbaan dhihi lahaa waayo waa mahadsan tahay bahda cabdiaskari tube waxay ugu talagashay barnaamijka bisha barakaysan ee rabadaan ee garoo ku guulayso qofka muwaadinka ee ka faa'iidaysta abaalmarin lacageed oo ay su-aal walba xambaarsan tahay waxaad ku guulaysatay dagaalkii xaq iyo baadilka lagu kala saaray ee beder su-aashaas sidoo ka jawaabtay adigoo ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada ee ku dhaqan maamulka magaalada qabridahar duleedkeeda marka dareenkaa ka war horta youtube ma taqaanaa walaal youtube hadda ma sii fahmayo kolley su-aasha saa uma fahmahay in la ii farweyneeyo mooyaane saa uma fahmayo youtube ma daawataa maya hadda ma soo saaray facebook ma taqaana iyo whatsapp waayahay walaal facebook iyo whatsapp iyo waan aqaanaayo asaalatan kor ahaan waan ka aqaanaayo laakiin ma daawanin kolley anigu maadaama hirmihii iyo iska yar xoolo dhaqata isaga badnaa de in la daawado jiraan waan ogahay laakiin ma daawanin dhaaxo marka waa kaa walaal marka youtube iyo facebook adigu ma leedahay malihi walaal whatsappna may midna malihi waka weliga maxaad ka aaminsan tahay marka youtube-ka iyo facebook iyo aaladaha dadka reer magaalka ee magaalooyinka jooga ay galaan de kolley horta youtube maba aqaano facebook iyo whatsapp iyo waxyaala saasahaan kolley yaan aqoon xogaa ayaan maarata yar fahmaya marka de way fiican yihiin waxyaalo fara badan baa laga faa'iidaa marka oo waxyaalo fara badan baa laga faa'iidaa marka way fiican yihiin baa la dhihi karaa marka waa kaas wax fiican baan ka aaminsanahay waxyaalo kolley laga fahmayo fiican oo lagala soo baxayo yaa jira waka waayo maasan tahay naga guddoon abaalmarintan waana ku hambalyeynayna bahda cabdiaskari tube ugu talagashay daawadaha ee ka faa'iidaystaha ah ee ka qaybgalaha barnaamijka ee su-aalaha diiniga la isweydiinaya ka faa'iidaysta abaalmarintaasi ugu talagashay waana ku hambalyeynayna anna aad baan walaal idiin salaamahayaa waka yara kala bixi akhri maxay lacagta tirso magacaaga maxamed cabdi macali xasan baa la dhaha walaal waxaan ka mid ahay gobolka qorxay degmada qabdahar waka bulshada xoolo dhaqatada ka mid ahay wakaasoo xoolo dhaqataana waa sida walaal maxaad bulshada ku daawanaysa ee youtube-ka oodan aad sheegtay inaad aqoonin kaa daawan doonta aad leedahay dee kolley bulshadaasi waxaan aqoon iga daawan doonta dee waan salaamayaa waxaanaan aqooninna weeyaan marka wakaasoo aqoon baana u lahayn waa sida waxa weeyaan wax xumayn iyo wax ceebayn iyo yacnihii way xun tahayna melihi way wanaagsan tahay baan leeyahay waa sida walaal aad baad mahadsan tahay mar kale waan kaaga mahad celinaynaa sida qurux badan barnaamijka uga qayb qaadatay haddaan su-aal kale ku weydiiyo caanaha geela laga maalo imise nooc bay u kala baxaan caanaha geela laga maalo walaalo waxay u kala baxaan dhay dee kolley caanaha geela markii laga maalo waa dhay lisoho abuur la weeyaan marka gaawaha lagu maalay dhiilka lagu liso waa dhay lisa abuur bay leeyihin marka markay maaragtay xilli badan joogaan oo waqti soo qaataanna dee dhanaan bay noqdaan xilliyada qaarkood soo sac baa la dhahayo waa inta dhanaanka iyo dhayda u dhaxaysa marka wakaas noocyadaasay u kala baxaan wakaa walaal aad baad mahadsan tahay kaaga mahad celinaa mar kale ka qaybgalka barnaamijka sida quruxda badan aad uga qayb qaadatay lacag 500 weeyaan walaal waan kaaga mahad celinayna sida quruxda badan ee aad barnaamijka garoo ku guulayso uga faa'iidaysatay su'aal badan oo soo garan waayeen dadka reer magaalka ay magaalooyinka joogay sida quruxda badan aad uga faa'iidaysatay barnaamijka uga qayb qaadatay aad baan kaaga mahad celinaa anna walaal 100% waan idinka mahad celinayaa marka waa ka aad baan idin salaamayaa aad baan ugu salaamaynaa ayo walaal Ramadan Kariim waad mahadsantahay ayo walaal idinkaan badan Ayo.